عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in soo gaarsiiyay bishan Ramadaan ee barakaysan xafladahan kala dambeeyay ee Qur'aanka lagu weyneynayna inaan ka soo qayb galo ay tani kamid tahayna Ilaahay nagu arsaaqay ayaan u mahadnaqayaa marka koowaad mar labaadkana cid kasta oo ka soo qayb gashay oo ay ugu horeeyaan wasiirka diinta iyo awqaafta iyo meeyarka caasimadda iyo culimada kala duwan gudidii qabanqaabada shirkadda iyo ardayda xafladda loo sameeyo intaba waan u mahadnaqayaa waxaan jecelahay intaanan hoos ugu dhaadhicin arinteenan in dareen cajiib aan idin cabiro oo quraanka kariimka ah runtii iyo markaad soo qaado mandiqadeenan halka uu maanta marayo dareen runtii ii samaysmay ayaan jecelahay marka hore inaan idin la wadaago 31 sano 31 sano dib cajaladeyda u celinaya arday yar oo ragga yar ee halkan imanka fadhiya rag la leeka oo maantana madaxdii dalka ah oo culimadii dalka ah oo akhyaartii dalka ah oo aan doorka aniguna inay dhalinyaro waxoogaa ka weynaha yaanan sii weyneynay oo intaan quraanka anagoo dareen wanaagsan nagu jiro dalkan iyo dadkan quraan ha yeeshaan xafado soo baxda aan ku bilaabay oo qoladii dhiirisayba aniga ahayd ee qoladii ugu horeeyay aan tijaabiyay in saaka ardaydii oo konton ku dhawaa kalaaska aan u dhigi jiray in saddex kamid ay maanta hortayda fadhiyaan dareen gaar ah ii samaysay waa meeyarkii caasimadda waa Sheekh Mubaarak waa Sheekh Ali Wadaad isku kalaas bahayaan aan bar hortay saddexdood isku kalaas bahay iyagoo codka isku haysta oo midna leeyay bariga Xudayfiyo iyo Sudays iyo Jaabiriya baa loo jiro midba Cabdiraxmaan oo inin Umar yare isagu wax akhri jiray Xudayfi Soomaa ayaan aad u xasuustaa dareenkaasi 31 sano kadib anagoo caafimaad qabna inaan quraankii isugu nimaadna waa Ilaahay mahadi iyaguna ay maanta nool yihiin annaguna aan nool lahay Ilaahay waxaan ka baryaa inta cumriga inoo dheereeyo muddo dheerna inaan ku sii wada noolaano inta haddaan ka gudbo Ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa war sheegay warkii xaq ahaa iyaga ku dhawaaqay qofka quraan qalbigiisa ku jiro Ilaahay baa ku darsaday dadka ahlu cilmiga ah ee Ilaahay aqoonta siiyay bal huwa aayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm Ilaahay baa yiri isagoo yar halka markay wax ugu jiraan ee quraan ugu jiro Ilaahay baa sharfay nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isaga yiri inna allaha yarfa'u bihadha alqur'ani aqwama wa yad'u bihi akharin qur'aankan Ilaahay dad buu kor ugu qaadaya qaarna dhulku ku geynaya hoos buu dhacaya inaan dhammaanteen ka wada qayb galo mid macallina mid ardaya waalid madax shacbi ganacsato culimo inaan ka wada qayb galo oo inaynu gallo qolada Ilaahay kor ugu qaadayo danteena ku jirta aakhiro iyo adduunyada marka waxaan odhan lahaa arrinka qof waliba dacal ka qabsado tartanada haddii aan ka yara waramo waxaan idin sheegayaa in yaro warbixin aan tartanada idinka siiyo maadaama anigu culimada ugu faraha badan ee tartamada u xogogaalka ah inaan wax yar idinka sheego magaalada Hargeysa ee tartankan maanta loo qabtay tartamo badan oo lagu qabtaa way jiraan laakiin tartamo habaysan oo maalinkooda dhaca oo sanadkooda dhaca way nagu yiri tartan la yiraahdo gobolka Hargeysa gobolka Maroodijo Hargeysa ayaa loo qabanayaa uu yiri wato arrintaana dareetaan baa wanaagsan tartamada aynu qabanno tartanka ugu caansan waa tartanka dahabshiil oo 22 sano socday tartanka dalka oo dhan baa loo qabtaa laakiin gobolada kale waxay gaar u leeyihiin tartan gaara gobolka matalan awdal mid bay leeyihiin
saaxil mid bay leedahay burco way samaysataa sool way samaysataa ceergaaba xataa oo ugu dambeysay iyada laftigeedu way qabataa mararka qaarkood laakiin hargeysa mid gaara male waxaan aad ugu mahadnaqayaa ardayga meeyarka caasimadda ayaa mar dhexdiiya bilaabay runtii waanu fulinay laakiin markii dambe may suurto gelin oo waxa laga yaabaa anu guddidaan haystay aan isku xidhay markaan isku xidhay guddida ama waxa laga yaabaa duruufo inay mararka qaarkood isbedelaan mar bay hargeysa u hirgashay laakiin imika ma jirto taasi waa qodob gobolladii kale way leeyihiin laakiin hargeysa mid gaara ma leh waxaan markaa tale ahaan u soo jeedin lahaa maadaama anagu taraafigii kala leexleexinayay tartamada qur-aanka aanu nahay inaan kala leexleexino tartamada qur-aanka si aanay isu jiidhin waxaynu markaa anagu tale ahaan ku soo jeedin lahaa tartankani inuu noqdo tartankii maroodi jeex waayo dadka ugu badan dalku halkanay joogaan iminka ardayda hargeysadaa dhan 14 arday baa laga qaaday tartankii oo sanadka dambana gebiga waxa tartanka dahafiil isugu soo hadhaya ardayda 30 jis ayaa isugu soo hadhaysa dalkaana ku tartamaya gobolladii kale markay tartamo helaan hargeysana inta kan ay markii hore gali jirtay ay weydo ardayda bilaa tartan bay ku dhacayaan marka horta anu saatana shacbiyadeeduna way badantay ardadana quraan waa dalka quraada ugu badan halkan ay joogaan iyo dhalinyarada ugu badan taasi waa taa tartamo kale oo la qaban karo oo aan ama shirkatan ama cid kale ba qaban kartaa jirta tartanka cod macaanida bari dawlad waxa qabtay warbaahinta nolosha ayaa qabtay wahiba qabtay laakiin hargeyso iyo tuulooyin yar buu qabtay tartan la yiraahdo tartanka codka oo aan xiftiga leeyin oo dalka oo dhanna waa la qaban karaa shirkadda u diyaarina way soo baxaysaa halkaas mid istaagaysaa iyaduna way qaadanaysaa tartan kala jira oo aynu qaban karno oo dalka oo dhan aynu qaban karno waxaynu qaban karnaa arday un baa imtixaan laga qaadayaa tartanka macallimiinta loo qabanayo dalka oo dhan waa tartan kala furan marka traafiga markuu ishaarooyinkeeda si kala qaata ilaa haddii kale way iska kin wada jeedayaan tartankaana waad qabsan kartaan waxaynu qaban karnaa tartan dalka oo dhan aynu qabanno oo tartanka quraada qiraa'aadka baratay ah kaana waynu qaban karnaa waxaynu qaban karnaa tartanka ka weyno tartanka geeska Afrika ayaynu qaban karnaa maaha wax adag maaha marka de imika anaga fikradii baa nagu jirta maadaama khibrad badan aanu u lahayn waxa furan oo kala duwan markay shirkaduhu arkaan tartankana saaha u fahmaan inuu laabo badan leeyahay idinkuna ka qayb qaato ugu dambeyn maxamed aw saciid aad baan isu naqaan waana isku wanaagsanahay waxa runtii garabkayga fadhiyay sheekh almis kulankii ugu dambeeyay oo uu si gaar ah noo casuumay marka 2 sano ka hor waxay ahayd ma garanayo ama 3 sano ayaa maalin uu casuumo gurigiisa runtii aad noogu soo dhaweeyay ayaa wuxuu yiri waxaan doonayaa hadda iyo wixii ka dambeeya inaan khayrka wax badan gashado oo aan ilaa awqaaf sameeyo idinkana waxaan doonayaa wixii aad ila qaban kartaan arrinka inaad igala qabataan waxaan rajaynayaa mashquulka badan laakiin maanta xaruntiisii hadaanu joogno oo tartan quraan isugu nimid waxaan isleeyahay malaa maxamed aw saciid oo malaa waa bilowday laakiin wax weyn dareen weyn wax weyn baa laga sugayaa oo kale dadku waa dad waaweyn umriguna wuu socdaa aakhirana waa la tagayaa amalka ina raacayaana waa ka aynu hormarsano marka khayrkana waxa la yiri u kala dheeray fastabiqul khayraadka u kala dheereeya laysma amaahiyo khayrka waa loo kala dheereeyaa yaan laga dheerayn barnaamijyo waaweyn baa laga sugayaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisana wax badan kaaga noqda kuwa ugu waaweyna waxa kamid ah barnaamijyada quraanka waayo quraanku waa kugu doode ama ku doode marka inuu adiga ku doodo ayaan rajaynaynaa adigana runtii kulanka hore isugu keen dambeeyayna barnaamij wanaagsan baad noo sheegtay imikana waan kuugu mahadnaqaynaa inaanu maanta xafladda ka soo qayb galno adigana waxaan kugu la talin lahaa iyo barnaamijyada khayraadka ee fara badan ee kale inaad ka qayb gashaan waxaan idinka ilaabay tartamada waxa kamida tartan xifdul mutun inaynu matniyada dadka xifdisiino xifdiga xadiiska ayaynu isagana ku dari karnaa deynahaasan ku soo koobi lahaa maantana farxad gaar ah ii tahay ardaydaydii waa ugu horeysay aan ku barbartay iyo ardaydii yar yar cusbaabayna meesha fadhiyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh